aad markii xukuumadda Soomaaliland xabsiga u taxaabtay gudoomiye ololaha kaalme kuwan Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon kana mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada Burco. Wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa inta badan ka shaqayn jiray olole khayriyo la magac bay kaalme kuwan oo la isku tuso dadka danyarta ah waxba haysan iyo dadka qaniga ah. Haddaba xadhigiisa ayaa waxa maanta ka hadlay dadkii danyarta ah ee wax soo taray wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon, waxaana madaxweyne Silaanyo iyo laamaha ammaanka Soomaaliland ka codsadeen in loo soo daayo samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ay sheegeen inuu noloshooda wax badan ka kaafiyay. madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa guryahan ku jiro isaga noo dhisay biilkana gacantuu noogu hayay Cabdimaalik la xidhiyo ilaahay waageenana ana ka dabnaga dagina madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad ninka noo soo dayso. magacay waa Cabdullaahi Aadan Dhagasoog. waxaan ka codsanay madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa maca booliska inaad soo daysaan Cabdimaalik Muuse Coldoon guriga noo sameeyeen oo hoosti fadhiya. taasaan ka codsanaya inay iska cafidaan ilaahay nala qabtay isagoo bariixa inoo yimaado isagoo hoostiisa gaar baabuur ku wata. waanu waqtiyaynaa intii waxba maanu helin saasaanu eegaynaa ilaahay waxaanu u barinay wayna noo soo daaye Cabdimaalik noo soo daaye waanu waqtiyaynaa in waxna siin mayso isagun baanu sidaa weelayna itaal malihi anigu ma socdo ma dhaqaaqo kaabiryaankaabaan la mid oo saasaan meesha u fadhiya. noo soo daaye oo noo keenay ilaaha weynanaha idinla qabto noo soo daaye noo soo daaye walaalayaal noo soo daaye madaxweynaha Silaanyo taliyaha noo soo daaye isagaanu cid ka dhiganay noo anfac ahaayo waxna siinaya noo soo daaye. qalbigay waxaan ka bari in ilaahay caafimaadkooda oo ka soo daaye oo isagoo nabad ah oo wanaagsan oo xorriyada noo yimaada oo wuxuu noo qaban jiray baa noo qabta oo siduu noogu gargaari jiray noogu gargaara oo siduu noo caawin jiray noo caawiya oo sidii wanaagsanayd noola dhaqmaa oo siduu wax noogu keeni jiray wax noogu keenaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda waxaan ka codsaday Cabdimaalik Muuse Coldoon oo kaalmeeyay ururka kaalme ku kaalmeeyay ummadda baahan aan ka mid ahay aniga ayaa Nuur Axmed waxaan ka doonayaa inuu celiyo xorriyadiisii ay ku cafideen Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland dadka baahan ee kaalmeeyay anigoo kala meedhana ama qaarigaba si daran jiraan si aananoo kala meedhana anigu waxaan sheegay Cabdimaalik Muuse Coldoon mooye walaal kale mali aabe kale mali inaadeer kale mali Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan doonaynaa in xorriyadiisii loo soo celiyo gaar ahaan anigoo ayaa Nuur Axmed Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaanu ku codsanaynaa boolis iyo madaxweynaha inay noo soo daayaan laakiin anagu waxaanu nahay dadkii masaakiinta ahaa ee dawladuna kaalmaysay ugu horreeyay dadkan la kaalmeeyay guryahana uu noo dhisay. marka siday markii hore noo kaalmeeyeen inay maanta sharaf noogu soo hayso dawladda iyo booliska iyo madaxweynuhu oo de Muuse Coldoon Cabdimaalik Muuse Coldoon inay noo soo daayaan si sharaf tire noogu soo daayaan baanu ka codsanaynaa. anagu markii hore wax allaale waxaan ummadana ogeyn sidaanu ahayn waa qof wali waa uu garanayaa waa kii buulka yar iyo buul halkan aanu ku jiray. marka si sharafna loo gal horta Soomaalidu noo gasho waxbayna siiyeen gacantana wuu noogu hayay isagaa noo dhisay oo de wixii ayna siiyeen xoolihiina la siiyey ayuu nooga dhisay. iminkana lacagtii wuu noo hayay oo si sharaf leh buu noogu hayay. iminkana waxaanu doonaynaa sidii sharafka lahayd in loogu soo daayo wuu qaldami karaa oo si aan waxba ahayn buu qaldamaa hadduu dee gafay isagu dee haw dambi dhaafaan hadduu ku gafay ilaa anagu wuxuu isku sameeye garan mayno hadduu ku gafay
si kastaba ha ahaatee wariye cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku xidhnaa magaalada hargeysa kaasoo xukuumadda somalilan xadhigiisa u sababaysay inuu qarannimada somalilan ka hor yimi kadib markii uu taageero u muujiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. jaamac Salebaan Cumar, telefishinka caalamiga SBC, magaalada Burco.